الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaynu ku dhex jirnay mowduucii ku saabsanaa jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaynu ku soo qaadanay labadii kelmadood ee hore ee nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa, fadligiisa iyo waajibnimadiisa, iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa calaamadaha lagu garto iyo waxyaabo aan kamid ahayn jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dadka qaar ay ku qaldaan jacaylka nabiga. waxaynu maanta qaadan doonaa insha Allah taala kelmadeenan sidee baynu u xaqiijin karnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa. walaalayaal, in nabiga calayhi salaatu wasalaam la jeclaado waa matlab aad iyo aad u weyn oo leenaga rabo dhammaanteena inuu wada saaran. marka waxyaabaha aynu ku heli karno ama aynu ku keensan karno waxa kamid ah inaynu garanno nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa iyo xaaladihiisii nololeed in nabiga calayhi salaatu wasalaam la barto. waayo waxa caadi ah qofka uu yaqaano ayuu jeclaadaa, qofka uu jecel yahayna barashadiisa ayaa uu ku dadaalay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam barashadiisa iyo markaa inaynu aqoon u yeelano siiradiisa waa mid markaa ina dhaxalsiinaysa inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam inu jeclaano. waxaynu ogaan xaaladihiisa, waxaynu ogaan nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa markuu dadka la dhaqmayo iyo marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu la dhaqmayo iyo marka wax weeye acdaadiisa iyo cadawiyadiisa uu la dhaqmayo. marka waa qodobka koowaad qodobkaas. salafkuna aad bay ugu dadaali jireen caruurtooda inay markaa baraan nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisa. waxa markaa salafka qaar fara badan oo kamid ay yiraahdeen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen kuwa nabara maqaasida oo looga jeedo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay noo baraan oo kale aayad qur'aan. qodobka labaad walaalayaal aynu ku helayno nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa wuxuu noqonayaa inaynu nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo sifaadkiisa wanaagsanaa inaynu baranno. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa nabiga akhlaaq wanaag ku amaanay, akhlaaq wanaag Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku sifeeyay. akhlaaq wanaaga iyo marka wax weyn dhaqan wanaagaasina waa kii sababay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam in ay jeclaadaan. Ilaahay baa yiri subxaanahu wa ta'aala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. aduu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku sugan tahay akhlaaq wanaagsan oo weyn. saxaabadu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ammaanay waxay yiraahdeen kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ahsana an-naasi khuluqa. nabigu wuxuu ahaa dadka ugu akhlaaqda wanaagsan. marka waxaanu garanaynaa qofka marka akhlaaqda wanaagsan dadku way jecel yihiin. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaq wanaagiisa, sifaadkiisa wanaagsanaa, dhaqankii marka nabiga calayhi salaatu wasalaam suubanaa inaynu baranno oo taasi marka aynu ku helno nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa. qodobka saddexaad walaalayaal wuxuu noqonayaa inaynu ogaano nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa iyo maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaga uu jecel yahay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo naxariisanayo. ilaahay baa quraanka inoogu sheegay, nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa inoo sheegay. ilaahay waxa uu leeyahay annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim. nabigu mu'miniinta waxa uu ka xigaa oo uga naxariis badan yahay xataa nafahooga cid kale iska daayay. ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayad kale waxa uu ku yiri laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. waxa idin yimid rasuul idinka idinka mid ah oo ay ku adag tahay waxa idinka idin dhibay, idinla jecel markaa hanuunka iyo hidaayada idinla jecel oo markaa kuwa mu'miniinta u ah mid u dhibirsan oo u naxariisanay. markaynu garanno nabiga calayhi salaatu wasalaam sida markaa uu inoogu dadaalayo ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inoogu naxariisanayo inoogu dhibirsan yahay, taasi waxayna dhaxalsiinaysaa inaynu nabigeena jeclaano calayhi salaatu wasalaam. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa inaynu garanno nabiga calayhi salaatu wasalaam qadarka weyn ee dhexdeena uu ku leeyahay iyo fadliga faraha badan leh ee nabiga calayhi salaatu wasalaam inagu leeyahay, taasoo ah in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yahay kii ilaahay inoo soo diray si uu inoo hanuuniyo ee ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoogu manna iyo gallad sheegtay. ilaahay waxa uu yiri laqad manna Allahu 'ala al-mu'miniina id ba'atha fiihim rasuulan minhum. ilaahay waxa uu mu'miniinta ugu gallad sheeganayaa inuu u soo diray rasuul iyaga ka mid ah. waxa kamid ah walaalayaal waxyaabaha ina dhaxalsiinay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wax weyn jacaylkiisa ama aynu ku kasbanayno nabiga calayhi salaatu wasalaam kalgacalkiisa inaynu ogaano nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisa qaabkii uu ugu dadaalay iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisa hanuunkeega iyo inay naar ka badbaado sidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam xil uu iskaga saaray. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu leeyahay
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نبي محمد waxaaba markaa waxaan ku dhowdahay inaad naftaada u halaagto iyaga markaa dabagurkooga iyo daba socodkooga haday ku hanuuni waayaan hanuunkaagan adigoo arinta noocaasiya ka murugaysan nabiguna calayhi salaatu wasalaam soo inoo muujinaya sidoo markaa inoola jecel yahay hanuunka iyo mar walba badbaadada wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga oo nabiyada kamidayba waxa uu lahaa markaa waxa weeyaan duco laga ajiibay anigu ducadeedii waxaan u dhiganayaa ummadayda si aan ugu shafaaco qaado maalinka aakhiro qodobka shanaad waxa uu noqonayaa inaynu ogaano aynu baranay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay kaynoo shafaaco qaadaya maalinka qiyaam oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku galadaysa inuu noo shafaaco qaado fi yawm al-qiyaam nabiga calayhi salaatu wasalaam marka hore wuxuu shafaaco qaadayaa li ahli al-mawqif kullihim xadiidkii dheeraa markii nabiyadu ay ka wada cudur daataan ee nabiga calayhi salaatu wasalaam loo yimaado waa ka oran doona ana laha aniga ayaa laha isaa ku shafaaco qaaday waxa kale nabiga calayhi salaatu wasalaam shafaaco qaadaya ahlul kabaa'irka kuwa dambiyada waaweyn sameeyay ummadiisa kamida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu shafaaco qaaday in marka naar ay ka badbaadaan in haday naarta galaan naartii ay ka soo baxaan inuu Ilaahay u dambi dhaafo ayaa marka ugu shafaaco qaaday nabigu wakiilaha calayhi salaatu wasalaam shafaacati li ahli al-kabaa'ir yawm al-qiyam li ahli al-kabaa'ir min ummati yawm al-qiyam shafaacadeedu waxay u sugan tahay dadka dambiyada waaweyn sameeyay ee ummadayda kamid ah waxa kale marka waxa weey kamida waxyaabaha aynu ku jeclaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam ee aanu ku kasbanayna jacaylkiisa inaynu garanno oo aynu ogaano in nabiga calayhi salaatu wasalaam ina jeclaa la kulankeena nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu marka wax weeyaan jeclaa oo tamaniy حديث النبي يقول عليه الصلاة والسلام وجدت أن لو رأينا إخواننا وحن جعلان لها إن نؤكل هين ولا لهم صحابتي يقول يا بن بيقول هذا نبي محمد أنكم يانا ولا لها أهي النبي عليه الصلاة والسلام وحوه العلي إذنك واحد تهين أصحاب تيدي ولا لهي وحويه كوا قضاء شيء من دونا يقول أهن إهرك النبي عليه الصلاة والسلام أيتها المسلمة أركت هذا النبي عليه الصلاة والسلام جعله inuu kula kulmo inaad marka wax weeyaan aragto ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam jeclaa oo aad la kulanto marka adiguna arinta noocaasi waa nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ku jeclaato oo marka jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad doonto oo naftaada ka raadiso oo sifaadka marka aad ku helayso iyo marka arrimaha kugu saacidaya nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad jeclaato oo inaad ku dadaasho mar walba